kun naafica qofka muslimka ah inuu noqdo qof waxtara waxa uu qofku qabanaya waxay ku xidhnaan doontaa mas'uuliyadiisa iyo inta uu awoodo nabiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu tilmaamayaa almu'minu ya'laf wa yu'laf ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف وخير الناس أنفعهم للناس حديث قاسي الشيخ الألباني حسن كنت المامي والنبي عليه الصلاة والسلام قفك مؤمن كاهي ومد لغو سوهرته يعني دادكو أي قصة طلقلان أما ومد دادك صوت دوما سور دوية سنة لسور دوية dadka badh baa haddaad aragta laga weecdaa sharkiisa dadka badhna waa lagu soo hirtaa meeshuu joogo qofka mu'minka ah nebigu wuxuu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam inuu yahay qofkaasi lagu soo hirto waxaanu sheegay qofka dadka sharkiisa iyo dhibtiisa dadku ay uga cararaan inaanu khayr lahayn dabeetana nebigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam wa khayru nnaasi anfacuhum linnaas dadka waxa u khayr badan ka u nafciga badan ka u waxtar badan dadka waxa u khayr badan ka u waxtar badan nabiga calayhi salaatu wasalaam nin baa u yimi oo wuxuu ku yidhi yaa rasuul allahi ayu nnaasi axabu ila allah wa ayu alacmaali axabu ila allah dadka yaa alla u jecel yahay acmaashase maxaa ilaahay u jecel yahay نبي عليه الصلاة والسلام حديث كان حسن لغيره والشيخ الألباني كل شيء قيه والنبي يقول أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ضدك إلهي وحوقك عليها قوة ضدك وحتر بدن أعماشنا وحلوقك عليها يقول النبي قلت المامي عليه الصلاة والسلام سرور تدخلها على مسلم قف مسلمات فرحت جلسه كفر حسيت تكشف عنه كربة نبها يستوات كفيدت أو تقضي عنه دينا أما الدين يقول يا كبحسد أو تطرد عنه جوعا أما قاجات كقودسد ولا أن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا النبي عليه الصلاة والسلام inaan qof muslima si aan baahidiisa ula gudo raaco ayaan ka jecelahay masaajidkayga kan waa masjidu madiina inaan bil ku i'tikaafo waxaan ka doorbidayaa buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam qof muslima baahidiisa inaan gudo waman kadama qaydahu walow shaa an yumdiyahu amdaa mala allahu qalbahu yowma alqiyaamati rida qofka cadhadiisa qarsada isagoo awoodi kara inuu guto guto kaana ilaahay qalbigiisa maalinta qiyaame raalli ahaanshiyu ka buuxiya qofka walaalkii raaca ee xaajadiisa ilaa intuu uga gudayo raaca isagana maalinta qiyaame ee aanay bini aadamku sugmi karaynin baa ilaahay subxaanahu wa tacaala gomadiisa suga idan nafciga qofka muslimka laga rabo inuu yeeshaa waa nafci adduunyo iyo nafci aakhiro wixii uu tari karaba